intii qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland wanaagiisa iyo horumarkiisa iyo taabagalnimadiisa ku farxaysayna ay u soo dhaweysay intii cadawga awal u ahayd ama dibadha ku sugnaato ama gudaha ku sugnaatee ay uga naxday arinta taariikhiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland u soo hoyatay bulshadu heshiiska kuma qancin ee aad ay u qawatan tahay waxaana sababay ugu horeyn xukuumadda oo aan si daahfuran bulshada ula wadaagin heshiiska afgarad ee bishan horaanteedii dhacay waxa uu ka qaylisiyay intii awalba cadawga Soomaaliland oo ahayd oo ugu horeyso dawladda taagta daran ee Soomaaliya ka talisa ee ku celcelinaysa xayeysiis ay leedahay aqoonsi ayaanu sidnaa darafkii kale Itoobiya dadkoodii waxay la wadaageen xogta ka duwan waxaana aanu ku dhabeelaynaa heshiiska marka kooban aqoonsi marka laga hadlayo kuma cadda heshiiska Itoobiya waxay sheegtay inay daraasayn doonto marka ay u fusho danteedu balse may sheegin inay aqoonsanayso hadda Soomaaliland waxay ka qaylisiisay dad marka horeba Soomaaliland aan qarannimadeeda aan xabiib u ahayn ayay ka qaylisiisay aqoonsigu wuxuu leeyahay marka labaad hanaan dunidu taqaan kamana mid aha in dhul ama bad lagu iibsado ama lacag la kaasisto garaadka horta maanta dadka qaarkood ay ku hadlayaan iyagoo qaarkood ay sheeganayaan inay madax axsaab ka yihiin horta waa garaadka weey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي ما مهدر دنسقناتي دالكين جمهورية Soomaaliland يقرنمديني إنغو كو فانينا هايسانا إلهاسينو marka u horeysa mahadinayna mar labaad waxaan jecelahay inaan bogaadiyo gees ila gees shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland gudo iyo dibadba sida ay ugu istaageen difaaca qarannimadooda iyo garab istaaga iyo sida weyn ay u soo dhaweeyeen heshiiskii isafgarad ee labada dawladood ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Ethiopia dhaxmaray bishii koobaad kowdeedii 2024 heshiiska isafgarad oo ahaa mid taariikhiya sameeyay saameyn siyaasadeed oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland 32 jirsaday muddada dheer baadi goobayay sidoo beesha caalamka uga mid noqon lahaa ay afkooga ka soo baxday dawladda Ethiopia inay noqonayso dawladdii ugu horeysay ee jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsi caalami siisa waa taariikh weyn oo sugantay oo maalmaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay baal dahaba ka gashay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland kalsoonida ay ku qabaan hoggaanka adag ee dalkani maanta leeyahay kalsoonida ay qarannimadooda ku qabaan kalsoonida ay dhexdooda isku qabaan ayay ku timiday guusha taariikhiga ah ee maanta jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay makansiiyay waana taariikh weyn waana maalmaha kale inooga duwanaan doonta ayay noqotay waxaanad ogtihiin shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland sida maanta intii qarankan xabiibka u ahayd ee halganka u soo gashay intii qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland wanaagiisa iyo horumarkiisa iyo taabagalnimadiisa ku farxaysayna ay u soo dhaweysay intii cadawga awal u ahayd ama dibadha ku sugnaato ama gudaha ku sugnaatee ay uga naxday arinta taariikhiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland u soo hoyatay maxaa dhacay markii heshiiska taariikhiga afgarad u dhacay maxaa ka dambeeyay kow guud ahaan adduunyadu waxa ay garwaaqsatay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay madax banaanideeda iyadu lumisay
1960kii ay la soo noqotay 32 sano ay xaqiijisay arkaantii qaran ku jiri lahaa arkaantii qaran ku sugmi lahaa qabatay xuduudihii dalkeega sugtay dalkeega ka hirgelisay nidaam dawliya oo dhammaystiran nabadgelyo adduunyada inteeda kale ka jirin ilaahay fadligii ha ahaatee shacbiga jamhuuriyadda Somaliland ay waxa weeyaan muddada inta leeg ay haysteen istiqraar iyo dawladnimo dimuqraadiyad aan adduunyada kale ee ictiraafka qaarkood ay ku faanayaan ay haystaan aanay Somaliland iyadoon ictiraaf haysanin ay xaqiijisay in ay madaxweynayaal cod shacab isku bedelaan golayaal xeerdajin cod shacab isku bedelaan golayaal deegaan ay cod shacab isku bedelaan waxyaalaadkaas oo dhani waxa ay adduunyada tustay in maanta qarankan 32 jirsaday ay adduunyadu waxa way gef ka gashay maantana la daba galayo waxa way dawladda Itoobiya oo noqotay dawladdii ugu horeysay ee jamhuuriyadda Somaliland u fidisa aqoonsi caalami ah aqoonsigaasi wuxuu ku yimiday Somaliland oo ilaahay waxa way fadligii ha ahaatee ay maanta ku taalo manbac istiraatijiya oo ilaahay u qadaray jamhuuriyadda Somaliland in halkan maanta ay waxa way istiraatijiyada ay ku taalaay ilaahay waxa way ay noqotay dhul jamhuuriyadda Somaliland juqraafi ahaan inay Somaliland noqoto khayraadka ku duugan iyo istiraatijiyada waxa way ilaahay siiyeyna ay noqotay mid adduunyadu maanta ay iskaashi iyo maalgashi waxa way dalkan ka samayso horeyna aad u ogtihiin waxa way maalgashigii dawladaha carabta qaar kamid ah Somaliland ku sameeyeen maantana tadawurka iyo horumarka muuqdaay ay ku timiday dadaal ay xukuumadii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye ay xaqiijiyeen maanta heshiiska afgarad bishan horaanteedii dhacay waxa uu ka qaylisiiyay intii awalba cadawga Somaliland oo ahayd oo ugu horeyso dawladda taagta daran ee Soomaaliya ka talisa ee adduunyada ay ku caawisay inay madaxdooda ay waardiyeeyaan ciidamada Afrikaana waxay ka qaylisiisay dad marka horeba Somaliland aan qarannimadeeda aan xabiib u ahayn ay ka qaylisiisay waxa soo dhan inaga oo ogsoon inama wiiqayso marka aynu Somaliland nahayna waxa haboon taariikhda iyo maanta xaaladda xaadirka ee jirta inaynu barbar dhigno xaaladii tagtay ee maadiyada ahayd ee hore oo ah in jamhuuriyadda Somaliland qarannimadeedu aanay marxab ku iman aanay wanaag ku iman ay ku timiday dadaal iyo xinjir rag in baa u dhimatay oo agoomowday naafo u noqotay maanta qaranka Somaliland ee la harsanayo ee in badan on tacabka aan soo sheegay aanay waxba ku lahayn haddana qarannimadaasi ilaahay u qadaray inay calfadaan dawladnimadeeda iyo horumarkeegaba in badan oo qaranka Somaliland halgan u soo gashay aanay calfanin kuwa maalinta hadlaya ee waxa way qarannimada Somaliland maalmaha uu qarankani taariikhda adag xaqiijinayo isla dhaawacana wax taariikhi ku lahaayeen aanay jirin laakiin waxa suurta gelisay shacbiga jamhuuriyadda Somaliland oo ku kalsoon hogaankooda adag ee maanta dalkani leeyahay istiraatijiyad leh siyaasadeed oo ku qadhonta wixii loo doortay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo kow ay ka tahay ilaalinta difaacidda iyo qarannimada jamhuuriyadda Somaliland sidii ay beesha caalamka ah uga mid noqon lahayd waana waxyaalaadkii lagu doortay waana wixii lagu dhaariyay ilaalinta difaaca qarannimada jamhuuriyadda Somaliland iyo madax banaanideedu hadallada ka soo yeedhaya dawladda taagta daran ee Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxda ka yahay waxaan saaka arkay gudoomiyaha xisbiga wadani oo leh waxay ahayd markii labada madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay Djibouti ku kulmeen inuu madaxweyne Muuse heshiiska isafgarad ee Itoobiya uu u tagayo
inuu u sheego xasan baa ahayd si xasan ay uga wada hadlaan garaadka horta maanta dadka qaarkood ay ku hadlayaan iyagoo qaarkood ay sheeganayaan inay madax axsaab ka yihiin horta waa garaadka weeye xasan sheekh iyo rabixiisuba Somaliland weligoodna xabiib umana noqonayaan nin kale cadowga Somaliland maad ogeysiisid guusha Somalilandna habeen maad jirin wana nasiib darro weyn balse garaadkaaga ayaad hadashay xasan sheekh maxamuud oo jimcihii masaajid ka soo dhaxadla waxaad ogtihiin haddaad u fiirsataan meesha uu ka soo hadlo daaha ku xidhan ee mixraamka masaajidka waxa ka dambeeya oo ku sugaya waa ciidamo amisom ninka amisom mixraamka masaajidkiisa iyagoo waxa weeyaan ay halkaasi ku tukanayaan ka soo dhaxadlaya aamini waaye intii muslimka ahayd uu la tukanayay ayaa qarannimada Somaliland habeen walba ka hadlaya madax banaanida Somaliland ka hadlaya khayraadka Somaliland ka hadlaya wadajirka ummadda Somaliland ka hadlaya 20 ka kunee maanta xamar jooga ciidan ee adduunyadu waxa weeyaan inagu deeqday hadday caawa ka baxaan waxaad ishurantiin waad ogtahay waxaan leeyahay qaranka Somaliland ka edebsada waxba naxli iyo maalin walba waxaan jirin oo ummadan u sheegtaan waxba inii tari maayaan shacbiga jamhuuriyadda Somaliland ee geesiyaasha ah ee qarankoogan Somaliland ku kalsoonna waxaan leeyahay dadaalkiina halka ka sii wada kalsoonida hoggaanka adag ee dalkani maanta leeyahay ku qabtiin halka ka sii wada wadajirkiina halka ka sii wada shacbiga jamhuuriyadda Somaliland sharaf iyo xurmay ku mudan yihiin sida ugu istaageen difaaca qarannimadoodan taaba gashay ay maanta haystaan gees ilaa geesna jamhuuriyadda Somaliland maanta waa isku hal qalbi waxay leedahay oo kale haatina waa cadowguna waa ka dibadda iyo kuwa ay isleeyihiin si dhaxmara dalka jamhuuriyadda Somaliland ay ku sugan yihiin gudahooga oo waxba inaga suurta galay wax allaale iyo wax inaga suurta galayay ma jirto waxaan rabaa oo kale inaan runtii iyadana dul istaago saaka golaha guurtida jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ansixiyay xeerkii doorashooyinka isku sidkana oo uga yimiday golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland oo ku sameeyeen kaabis iyo wax ka bedelba waxaan u aragnaa xukuumad ahaan iyo wasiirka golayaasha aniga oo ah inay guteen waajibaad dastuuriya oo ah in golayaasha xeer dejintu marka xeerasha isku gudbinayaan inuu golo kastaaba golaha kale waxa weey dastuuriyana uu eego wax ka bedeliya kaabis ugu sameeyo kadibna hay'adaha kale dastuuriga khusayso uu tago halkaana waxa naga soo idlaatay waxa weey xeerkii isaguna doorashooyinka xukuumadda madaxweyne biixi uu hogaaminayana waxa ka go'an dalkan difaaciisa waxa ka go'an dalkan in doorashooyin ka dhacaan waxa ka go'an wadajirka ummadda cid kasto weeqaysa in ummadda laga qabto waxa ka go'an in jamhuuriyadda Somaliland maanta halka ay maraysay beesha caalamka kaga biiri lahayd cid kaste oo isku dayda qowl qoraal inaan dib dambe faraha looga laaban doonin talaabada ku habboon ee dastuuriga ahna laga qaadi doono Somaliland maanta marxaladda ay marayso cadowgu wuxuu ugu fikirayaa inuu kuwa gudaha Somaliland oo platformyo kala duwan haysta inuu u soo dhaxmaro si qarannimadan loo wiiqo wadogtihiin heshiiska Ethiopia iyo dawladda jamhuuriyadda Somaliland ay wada galeen in turjumaan qaldan laga bixiyay talaabada ku habboon ba laga qaadaya cadowga Somaliland maanta leeyahay ka uu isleeyahay waxa uu gudaha Somaliland ku dhex jira oo dhex mari kartaana wax allaali wax halkan iniga suurta galaya ma jirto horeyna way iniga suurta gali weyday waxaan arkay maalin dhaweeyta mudanayaasha golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland oo qodobo soo saaray mudanayaasha golaha wakiilada waa golo dastuuriya oo xeer dejin xukuumad ahaana wada shaqayn dastuuriya ayaa naga dhaxaysa golo kastaana inuu hawshiisa u guto si dastuuriya ay taladu tahay waxa qodobadooda kamid ahayd in heshiiska iska fargarad ee jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka Ethiopia la hor keeno golaha wakiilada madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland isagaaba sheegay marka arkaantiisi u dhameystirantana golaha wakiilada waa la geynayaa iyo golayaasha kale ee xeer dejinta haday guurti tahay iyo hada wakiilaba tahay waajibaadkiina dastuuriga ana wad ku gudan doontiin maantana waxaad ku suntanaan doontiin
golayaashii xeerdejinta ee u horeeyey ee meel mariyey heshiis afgarad oo jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsi u keenay inaad golayaashii u horeeyay aad noqotaan taariikhdana inaydan ka leexan oo waxa weey majarahaasina aan layniga leexin ayaan ku talin lahaa anigoo ku kalsoon inaad tihiin mudanayaal dalkan u dhaartay ogna wixii ay u dhaarteen oo ah jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madax banaanideeda shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay guul iyo gobonimo السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan doonayaa ka hadlo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya. Heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya mugdi ayaa ku gadaaman. Aqoonsi waa doonaynaa oo mudnaanta koowaad uu yahay dadka reer Soomaaliland. Xiriirka wanaagsan ee saaxiibtinimo wada qabsiga iyo iskaashi dhexmara Itoobiya iyo Soomaaliland waa soo dhaweynaynaa. oo dadka reer Soomaaliland waa soo dhaweynayaan. balse bulshadu heshiiska kuma qancin ee aad ay u qowatan tahay waxaana sababay ugu horeyn xukuumadda oo aan si daahfuran bulshada ula wadaagin ee ku celcelinaysa xayeysiis ay leedahay aqoonsi ayaanu sidnaa darafkii kale ee Itoobiya dadkoodii waxay la wadaageen xogtaa ka duwan waxaana aanu ku dhaliilaynaa heshiiska marka koowaad aqoonsi marka laga hadlayo kuma cadda heshiiska ee Itoobiya waxay sheegtay inay daraasayn doonto marka ay u fusho danteedu balse may sheegin inay aqoonsanayso hadda Soomaaliland daraasadda waxaa ka soo bixi kartaa inay ku qaataan qaraar kale oo ka duwan oo taasina ay keeni karto dee calaamad su'aal aqoonsigu wuxuu leeyahay marka labaad hannaan dunidu taqaan kamana mid aha in dhul ama badda u iibsado ama dee lacag la kaasiisto marka saddexaad aqoonsiga Itoobiya ee aynu doonayna haddii uu dhab noqdo oo sidaa ay dhabowdo ay kuba qanacdo dowladda Itoobiya aqoonsiga hal dal oo Soomaaliland aqoonsadaa ma ku filan yahay oo sidaa dal rasmi ah ma kaga noqonaynaa beesha caalamka waxay ugu muuqataa maya waxaana caddaynaya tusaalayaasha dee dunida hore u soo maray dalka Qobris ee Turkiga raacsan waxaa aqoonsan dowlad weyn oo ka mug weyn Itoobiya oo Turkiga ay aqoonsan halkaa dalba aqoonsan dowladda oo aqoonsana mana aha beesha caalamka ka mid aqoonsi wax taran noqon marka labaad Taiwan waxaa aqoonsan ilaa 13 dalba hadda aqoonsan tobaneeyana dib ay uga noqdeen welina iyadoo 13 kaas aqoonsan yihiin sidaa kumay noqonin aqoonsi ay beesha caalamka iyo qaramada kaga mid ahaato waxaana weliba intaanay dib uga noqon ka horreysay waqti badan oo ay u loogan garaynayeen inay soo toogin Kosovo taalamida oo saddexaad saddexaad waxaa aqoonsaday dalal badan oo boqol ku dhow ama ka badan baynka ilaa haddana kursigii UN kumay fadhiisan qaramada ka mid noqon marka dal kale inuu aqoonsado suurtagal ma inaad ka noqoto sidoo kale haddii aynu aqoonsiga bad iyo dhul waxaynu doodaba aynu siisannahay waddamadii kale uu inaga xayiro oo dal waliba inay yidhaahdo annana maxaana siinaysaa ilaa adigan waxbaad dadka keentay dal waliba hadduu yidhahdo dalkiina aqoonsan lahaa ee markii hore macaamilka diblomaasiyadeed dadku dunida dhex mari jiray ee ku aqoonsan jiray haddaad imarka iib ku keentay dee dal waliba waxuna maxaad siinaysaa waa marka shanaad aqoonsiga waddamada dunidu waxay u qaybsamaan laba nooc mid waxa la aqoonsadaa dowladda midna waxa la aqoonsadaa dalka waa noocee ka Itoobiya ayna aqoonsanaysaa waxaa sidoo kale sidaan carab ku soo dhuftay waa laga noqon karaa labada noocba hadday ka noqoto berritooda marka nidaamku isbedelo maxaa inoo saldhiga waxaa wanaagsanayd arrintan oo kale waxay ahayd in ay ka horrayso daraasad lagu lafagurayo iyo diyaargarow buuxa oo ay dadku isla og yihiin ilaan Itoobiya waa dal weyn oo inaga xoog badan inaga aqoon badan inaga farsamo iyo xeelad badan marka way ku ofismaad garayn karaan maslaxadooda iyagu ma qaldana maslaxadooda bay doonayaan maslaxadeennii iyo maslaxadooda inay iswaafaqdo waa marka labaad
waxa wanaagsan in tala midaysan laga yeesho oo ay golayaasha qaranka iyo xisbiyada mucaaradka ah iyo inta aan talada looga maarmin inta aan go'aanka la gaarin yani laga socotiyo wax lagala wadaago maadaama arrin masiiriya tahay maadaama marka saddexaad waqtigan ay jiraan khilaafyo siyaasadeed oo gudaha Soomaaliland ka jira iyo xasarado waaweyn oo dunida ka taagan oo saameyn xun ku leh waayaha nolosha ku leh waxa ay ahayd in aan mashruucan oo kale buuq lagu dhex tuurin oo qaab habaysan oo waqti qorshaysan iyo farshaxan diblomaasiyadeed lagu galabayahay oo dowladda ay saaxiibkan hayayna waa inuu qaab noocaas ku galo marka afraad maadaama madaxweyne Muuse shir la qaatay madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya oo maalin ka hor uu dhoofay waa sabab dhoofay waxay idin kulanka ay ka soo baxaan isfahan ku wajahan mashruucan oo buuqa iyo cadaawadda laga dheeraado intii suurtagal ah isla markaana la qorsheeyo yani iskaashaanbuuraysi iyo wax wada qabsi iyo xiriir wanaagsan oo gobolkan yani dhex mara saddexdan wadan markii hore wada joogay Ethiopia iyo inta kale geeska regional integration geeska la sameeyo ayay fiicnaan lahayd waxa fiiro gaar ah u baahan oo shakiga sii kordhinayo nagu sii kordhinayo bulshada ku kordhinaya waxa hore u jiray madaxweyne Muuse oo tagay Guinea oo traffic laga soo qaaday oo haddana warkii wax ka soo noqday waxa hore u jiray madaxweyne Muuse oo tagay Mareykanka oo yiri heshiis baynu kala saxaxanaynaayo in kala keenay oo wax ka soo noqday haddana waxa jiray iyadoo la yiri Berbera lagu sameeyay dabrid oo dunidu isugu imanaysa oo Mareykan intaasoo dalba isugu imanaya oo wax ka soo noqday war intaas oo jeer oo ay xukuumadan Muuse iyo madaxweynahan wax soo bandhigeen ba wax ka soo noqday waxaan leenahay war dadkan ayaan been loo sheegay shaarkeenana ayaan farsamadii aynu wax ku wada qabsan lahayn la xumayn cadaawad aan loo baahnayn iyo buuq aan waqtigan xaadirka loo baahnayn ayayna abuurin wixii ummadda u dana aan miis kaga wada hadallo hala soo bandhigo ciddii mudnayd oo baarlamaanku ugu horreeya loo soo bandhigo wixii khaldan ee jiran hal soco ayaanu leenahay dadka reer Soomaaliland waxaan leenahay buuqyada jira iyo waxa weeye aan si meel qabta u baadi doono oo aan isula eegno ayaanu leenahay xukuumadan waxaan leenahay wax dhageyso oo waa wixii aad horo ay u aaday dadku u aadeen oo in badan baan ku lahayn laascaanood intaanay farac ka bixin war tala qaata war wax dhageysta sidaan idin lahayn bay farac ka baxdo war maantana ayaan dhul kale farac ka bixin war maantana ayaanay qasrin ugu abuurin war maantana wax badso wax beer bay dhashaayay arrintan inoo keenin mushkilad kale ee waxa weeye aan si la jeclale hareeraha uga fadhiisano oo arrinta hal laga daayo nin toxic iyo sida ay xukuumaddu wado ay soo barbarinayso maalintii salaam alaykum.